شرف بين قمودن مركحيقانا سماهي كمسؤول وياي معاك ويا معاك وياي معاك ويا معاك مركحوري شرف بين قمودن مركحيقانا سماهي كمسؤول وياي معاك ويا معاك وياي معاك ويا معاك runtii waxa farxad noo ah maanta oo ah maalintii 8 Maarso maalintii haweenka adduunka in aan annaga maamulka gobolka Banaadir runtii aan qayb teena ka qaadanayno xusayna haweenka Soomaaliyeed ognaha ahmiyadda ay leeyihiin ahna lafdhabarka bulshada maantana waxa farxada markii aan niri gabdhaha maxaan sanadkan idin qabanaa maxaan suubinaa runtii waxay door bideen wax mira ku dhala isla markaana raagi doona oo ay door bideen in haweenka loo iibiyo harqaan iyo qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen shaqo sharaf leh haweenku waad dareemaysaa marka inay ragga aad uga duwan yihiin xagga fikirka iyo xagga mustaqbalkaba marka aad iyo aad bay farxad noo tahay in haweenka gobolka Banaadir ay maanta ku xusayaan sanad guuridii 8 Maarso in laga farxiyo qoysas badan in loo adeego bulshada isla markaana harqaanadan iyo qalabka la siinayo ee noqon doona kuwo lagu tababaro gabdho badan oo Soomaaliyeed ay u noqon doonto fursad waxna ku bartaan shaqo abuurna u noqoto intaas ka sokow runtii haweenka iyo doorkooda mid la iloobi karo maaha waa mid aan wada qirsanahay annaga Soomaaliyeed aan nahayna kuma sii jirnaba xilligii colaadaha xilligii 30 sano la soo dhaafayna haweenku waxay ahaayeen dadka runtii qoysaskooda biisha dadka u adeega dadka aan dagaalna ka qayb qaadan una taagan in nabadeyn iyo sidii lagu heli lahaa dib u heshiisiin sidoo kale haweenka qurbaha tagay ayagana waa aragnay sida ay ragga uga duwan yihiin ha noqoto u damqashada qoyskooda u damqashada dalkooda wadanninimadooda iyo sida ay u rabaan Soomaaliya inay horumar u gaarto sidaas daraaddeed waxaan rabnaa haweenka Soomaaliya meel walba joogaan inaan maanta aan dhahno hambalyo sidoo kale raggana waxaan ka codsanaynaa maanta in laga farxiyo haweenka ha noqoto xaaskaaga gabdhahaaga dariskaaga qof walba waxaan rabnaa haweenka in laga farxiyo si aan u tusno in aan u damqanayno u tusno in ay naga istaahilaan marka aad iyo aad u mahadsantihiin Chiro